نبدينا الكاتارا وحتى هاي عذيبي نبدينا الكاتارا وحتى هاي عذيبي كنارا 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 شيدانك كنارا نبدي 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 نبدينا الكاتارا وحتى هاي عذيبي نبدينا الكاتارا وحتى هاي عذيبي كنارا 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 شيدانك كنارا نبدي 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 adiga 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 naflada janabtiganada doja kanole joogana adakaba nabade waxaan u mahadnaqaynaa ciddii soo abaabushay ama casuumadda tan hadhimo sharafeedka ah ee qiimaha leh ee isugu keentay dadka oo ah ganacsatada Somaliland aniguna hadalka koobaya waxaan u mahadnaqaynaa marka labaad ergada inoo timi ee nabadda inoo waday ee iska xil saartay ee 2,000 kiiloomitir iyo 2,000 kiiloomitir oo midna sii socdeen midna soo socdeen iyo intay xaggeenaba u soo socdeen intaa hawshaa ku maqnaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxay muujinaysaa walaalnimadeenna ehelnimadeenna inaad damqataan oo walaaladiin oo kuwa xaggaa joogana wax isu tihiin oo ehel tihiin halkana intii isu abtiga ahayd iyo intii isu ehelka ahayd iyo intii xidhiidhku ka dhaxeeyay ay tahay inaa u guuraysaan oo u garaaracaysaan waa wax qiimaheeda la weeyey aad iyo aadna waa idinkaga mahadnaqaynaa waxaanaanu leenahay marka koowaad waa nabad xaggayaga anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka Somaliland marka labaad waa nabad marka saddexaadna waa nabad waxaanu ogeysiinaynaa adduunyada ama caalamkaba geeska Afrika ciddii khusaysa ee danaysa howlaha kan Mustafa madaxweynaha kilarka shanaad iyo dawladdiisa oo isaguna si gaar ah isaga xil saaray inaanu nabad doonayno oo aanu nabad doonayno oo aanu nabad doonayno nabaddaas qiimaheedu aad iyo aad iyo aad buu noogu weyn yahay intiina ka shaqaynaysana waa abaalkeeda xagga ilaahayna waa ka leedii xagga iyagana ilowshiyo kama jiraan waxaan markaa leeyahay waxa weeye walaalaha iyaguna ha maqleen madaxweynaha kilarkuna ha maqlo madaxweynaha iyaguna ha maqlo idinkuna maqla waa nabad oo idinka aqbalay sidaa aynu ku ballanayna waa u soo agaasimaysaan haddii ilaahay ka dhigo salaadiinta madaxda dowladda guddigii nabadda ee madaxweynuhu magacaabay nala jooga ganacsatada iyo dhammaan ehlu sharafka xagga fadhiya waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi walaalayaal dalkayagii iyo dadkayagii baan u nimid hawshana looga mahadnaqayana waa hawshii aanu lahayn hadday xagga iyaga ka dhacday hadday meel kale ka dhacda si aad usoo gurman lahaydeen oo aad uga danqan lahaydeen unbaan u soconnaa wax la yskaga mahad celiyo waajibina saaraa buu ahaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay salaadiinta jamhuuriyadda Somaliland sida walaalayaal waxaan wadnay aad noola qaadateen eed nooga farxiseen waxaan ilaahay idinka baryaynaa miisaanka xasanaadka idiin saaro nabadda aad daydayno eed nala daydayaysaan tii xasashay inuu ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan u faraxsannahay waxaan idhaahno garan mayno wadaad baa la yidhi muxuu jecel yahay tuftaadii waa la aqbalay waxaad wadeen waana la aqbalay haddiina la yidhi kalgacayl iyo wanaag iyo nabad aad raadinaysaan iyo sidaan u rabno
aad bay noo farax gelisay annaguna waan qaadaynaa ilaa aynu ka madho dhalinayno waxaan rajaynaynaa oo weliba codsanaynaa inaad garbahayaga noogu noqotaan oo aad nagu taageertaan waxaan saa u leeyahay waxaynu badbaadinaynaa waa dhiig islaan waa wiil soomaaliyeed waa wiil iyo abtigii xabaddii oo ka dhexdhacaysa taa inaad nala qaadataan waxay tilmaamaysaa dhaqanka soomaalida iyo hoggaanka dhaqanku miisaanka iyo wanaagga siduu u jecel yahay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa walaalayaal waxaanu ka keennay laascaanood maanta taadna tiraahdeen way idiin hiloobeen nabaddaasay idinla jecel yihiin way noo dhiibeen wax walba dhulkaan dhigaynaa bay yidhaahdaan sidaad noo tiraahdeen idinka iyo iyagaba waxaan ilaahay uga baryaynaa in aynu nabadda aan makansanno oon qaadanno oo dhulkaasi siduu ahaan jiray oo aroos iyo wanaag iyo ganacsi intaba uu bilaabmo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin culamaa udiinka iyaguna mar walba wacdiga iyo wanaagga iyo baraarujinta labada dhinacba wada idinkana ilaahay khayr ha idin siiyo miisaanka xasanaadka ha idin siiyo waxaa maanta soo baxay ganacsatada marka horeba shilinku kuma baaqanayn ama xagga xumaanta ha loo isticmaalo ama xagga khayrka maanta waxay caddaatay ganacsatada reer somalilan ee afartaa cishaba gacanta nagu haysay maanta inay khayrka lacagtoodii ku bixinayaan oo meeshii diinteenna macaan ay noo sheegtay aad ku bixinaysaan ilahay waxaan idinka rajaynaya miisaanka xasanaadka idiin saaro kaalinkaas dadka soomaaliyeed ee geeska afrika degan buu ka maqan yahay hormuud baad u tihiin haddaad reer somalilan tihiin hormuudnimada inaad sii wadaan kolley shilinku idinku baaqan maayo aakhira waa intuu ku ridi lahaa aakhira wax weyn ha idiin gooyo dariiqa aad bilowdeen baan idinku waaninaynaa oon idinku ducaynaynaa ilaahay idamkii jazaakum ullah khayr hadal badinima yaallo hawsha annagayna ag taallaa gogashii iyo hawshii see u socon lahayd ayaanu gudagelaynaa daalina mayno culummo iyo ganacsato iyo salaadiinba walaalayaal noo soo duceeya aad iyo aad baa u mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu suldaanku waa kii fariintayadii isagaa ka jawaabay waxaana la qaadanay nabaddii ay noo sideen martidii noo timiday taasaan wakti ku bixin doonaa aan u heelanahay daa'imanna waxaad ogaataan meesha nabadi taallo uunbay dhimcana taallaa nolole halkaa unbay taallaa marka cid kasta fariintayada waxaan leenahay nabad baa inoo caana macaan nabad baa wax lagu heli karaa nololina ka abuurmaysa dalkana nabad baan ku iibin karnaa oo noloshaasi ay ku imanaysa marka diyaar baan idiin nahay idinka iyo dadkii mudakarka ahaa ee idinka dambeeyey madax iyo maaragtay hoggaan dhaqanba waxaad naga gaadhsiinaysaan inaan idin aqbalay oon idin ogolaanay mahad badanna waan idiin soo jeedinaynaa walaalayaal waxa maanta meeshan yaalla waxaa weeya wax lagu farxo oo waxa hadda geeska afrika ka jira wax ka duwan weeyaan in ummad intan la eg ay isugu timaado in ay islaax iyo wanaag iyo kalgacayl iyo soo dhoweyn ay isugu timaado waxaanu qiraynaa dadka somalilan hadday xukuumad tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday ganacso tahay in aad siiseen arrintii aan wadnay miisaankii ugu sarreeyey ee bani aadamku bixin lahaa inaad siiseen baanu qiraynaa waxaan xaqiiqo ah intaa aanu joognay salaadiinta ma aanaan kala dhammaanin xukuumadda ma aanaan kala dhammaanin mar walba wanaag baan isugu imanaynay walaalayaal waad ku mahadsan tihiin waxaa kaloo noo muuqda ififaalo wanaagsan madaxweyne cabdiraxmaan markii loo dhaariyay xukunka wuxuu ka bilaabay nabad wuxuuna u dhiibay walaalahood oo kuwa ugu munaasabsan oo annaga ah inaan nabadda raadino waxaan leenahay waa waddadii ugu fiicnayd waa dadaalkii ugu wanaagsanaa waxaan taa u aragnaa xukuumadda maanta dhisan inay tahay xukuumad u dhaqaaqday islaax wanaag iyo dadka inay midayso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa uguna ducaynaynaa ilaahay inuu ku garab galo
waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo ay ka bilaabantay hawshu ay ka bilaabantay isaga nabadayntu iyo mustafe maxamed cumar oo la qaatay hawsha iyadaa oo isaguna dhankiisa ka qabtay labada madaxweyne waan mahadnaqaynaa waxaan kaloo mahadnaqaynaa odayaasha dhaqanka ee somalilan ee 30 sano ee somalilan jirtayba ku hawlanaa nabadgelyada ka shaqaynayay isqabsiga iyo kolba wixii ku soo kordha waan u mahadnaqaynaa halkoodiina way ka wadaan waxaan kaloon aad u salaamayaa culimada maanta ee nagu soo biirtay ee inala joogta waxaan leeyahay kolley waxa loo socdaa waa hawl wanaag ku jiro wanaagga haddii ilaahay ka dhigay ilaahay hayna la garab galo innaguna waxa weeye haynu u noqonno dhibta iyo waxa inaga gaadha haynu mar walba ugu dulqaadanno biidni illaahi tacaala anagu maanta hadalkeennu ama wax kale ma aha waxaa weeye waa mahadnaq iyo bogaadin oo keliya markaan saa leenahay sidii sharafta leed noo soo dhaweyseen ee laga soo bilaabo wajaale xuduudda ilaa maanta aad hareerteena joogtaan hadday tahay madaxdii dowladda hadday tahay cuqaashii iyo salaadiintii dhammaan somalilan iyo hadday tahay maamulkii gobolka iyo deegaankii ganacsatadiiba dhammaan intuba waan idinka guddoonnay hadda mashaarafeedkiinnii iyo runtii ma noqonin dad marti ah ee waxaan nahay dad guryahoodii jooga run ahaantii guryahayagii baan joognay aad baad nooga farxiseen aad baad noo qaabisheen ergadeennina waxay ahayd erge nabadeed oo waxaanu sidnay farriin nabadeed farriintii aan sidnayna run ahaantii si bogaadin leh oo sharaf leh oo qalbi farxadeed aad nagu soo dhaweyseen ood nagu guddoonteen oo waxaanu doonay inaad gacanta naga saarteen taana waa idinkaga mahad celinaynaa ta kale runtii horta meeshan waxaan ka dareennay ama aan ka garannay inaad ahaydeen dad walaalo oo isku hiloobeen oo marnaba aan kala maqnayn weli ma arag inta odayaasha meesha fadhisay ruux ay dadkaa kale wax u ahayn ama abti u ahayn ama seedi u ama adeer oo aanan wax isku ahayn ma arag xaggii markaa tagnana sidoo kale waa la wada ooyay meel kasta maalin kastoo wax dhaco labada gees waxaan baa yacni dad qaraabo oo walaalo oo ehelo seedi abti adeer ayaad wada haydeen annaguna maantay waad naga farxiseen ilaahay idinka farxiyo somalilan dhammaanteed jamhuuriyadda barakaysan ee anigu waa aqaanaay jamhuuriyadda barakaysan allah barakeeyo odayaasheedii cuqaasheeda allaha barakeeyo waxaad idiin keenna ood naga qaadateenna jazadeeda janno allah idinkugu bedelo garaadada ugaasyada boqorrada culimaaudiinka mas-uuliyiinta qaranka ee jooga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay hawshaad naloo magacaabay inta xooggeediiba idinku soo dhammayseen oo annaga wax badanoo noogu hadhayba aanu jirin dadaal weyn baa gasheen reerihiinnii iyo oriyinnii iyo carruurtiinniiba intaa ka soo maqnaydeen jidkaa dheer ayaa soo marteen intaasina waxay soo marayseen wanaag dadkaa walaalaha ah ee shaydaanku kala dhex galay in nabadgelyo ku soo celisaan annaga hawshaydu way dambaysaa waanaynu sii ballami doonnaa intaydaan tegin kolle waynu is arki doonnaa aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa xagga somaliland nabaddu waa ka diyaar hadday madaxweynaha tahay iyo hadday dowladda tahay iyo hadday madaxdhaqameedka tahayba waa ka diyaar oo waa la qaatay farsamadii baa inoo hadhay farsamadaana ka hadhay maysaan idinku badaadihin doona dowlad deegaankana unu mahadnaqaynaa madaxweynaheeda oo hawshaa idinkuna idinla badbaadiyey idinla qabtay waanu ku mahadnaqaynaa ilaahay idinkiina dadaalka labada madaxweyne dhicisoobi maayo dadaalkiina dhicisoobi maayo insha allah bidni illaahi kariim kalsoonina waanu idin siinay waanu idinla shaqaynaynaa wixii aan nooga baahataana waa idinla qabanaynaa wixii aanu idinka baahanana waa idinla imanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalkii waxa weeyaan runtii kulle makaanaha maqaal waa iska kooban yahay warkoo dhani halkan fariintaan ka dirayaa uun aan ku kobayaa hadalladii hore waxa weeyaan haddaynu nahay somalilan madax dhaqameed ahaan dowlad ahaan ganacsato ahaan shacab ahaan ummad ahaan waxaan idiin sheegaynaa insha allahu tacaala inaanu qaadanay nabad
ku qaadanay sida ugu wanaagsan ugu baaqayna walaaladayada kale insha allahu tacaala inay nala qaataan iyaguna ay ku mahadsan yihiin maadaama ay noo soo gudbeen ay qaataan nabadduna ay tahay waxa maanta aan ku islaaxayna dhammaanteenba oo aan ku wanaagsanaanayno anagu insha allahu tacaala waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay haddii ikhlaas iyo run loo galo inay qabsoomayso siduu sheekhu haddee noo sheegay in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala in sha allahu tacaala xagga yaga muwaafaqaan ku nahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaya inuu aqbalo xaggiina saasaan ka rajaynaya insha allahu tacaala guddigana waxaan leeyahay insha allahu tacaala allah idin barakeeyo idinkuna insha allahu tacaala waad sheegteen ikhlaaska ku dadaala waa wax weyn oo qiimo badan in maanta aynu nabaddii ay ergada dowlad deegaanka ka timid ay noo keentay in culimadeenni aqbasho salaadiinteenna aqbasho aqoon-yahankeenna aqbalo guddideennii nabaddu ay aqbasho siyaasiyiinteenna ay aqbalaan waa wax weyn oo qiimo badan waa taariikhday gelaysaa taariikhduna iyadaa soo noqnoqotaa la yidhaahdaa gaaladu waxay tidhahdaa history repeats itself التاريخ تتردد عن نفسها تاريخ ذا حسي دونتا ان هداني يركو يرنقضو وانسو كوبي ان نبدا تن وحا اونكاي واقبلاي مدحوينها جمهورية السوماليلاند مدن عبد الرحمن عرو لنا كلنا وحا اقبلاي واونكاي مدن مدحوينه عكشر iyo marti sharafkan iyo qada sharafkani maanta waxaa aynu ku soo dhaweynaynay walaaladeen garaadadii iyo madaxdii dhaqanka ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ee isu xilqaamay ergadii nabadda aad la socoteen muddadii labadii bilood u dambeysay bayna hawshaan ku jireen dhowr habeenna hargeysayna la joogay waxaa runtii aa ka shaqaynaysaan ee aawadaan waxa weeye waa islaax iyo wanaajinna wax ka qiimo badan oo laga shaqeeyaa ma jiro laa khayra fii kathiirin min najwahum ilaa min amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wax markaa lagu faqo ama lagu kulmo oo laysugu yimaado khayr kuma sugna baa ilaahay yidhi kulamada laysugu yimaado ee wanaagga laysku farayo ee sadaqada laysku farayo ee islaaxa iyo wanaagga laysku farayo mooyaane waxaanu si gaara u soo dhaweynaynaa u salaamaynaa si kal furan ugu mahadnaqaynaa ergada inooga timid walaalaheena kilarka dowlad deegaanka Soomaalida ee garaadka hogaaminaya garaad kulmiye Somaliland wanaag baa yaala kalgacalka iyo idinka ka warrami doona waxa aragteen waa idin soo dhaweynaynaa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأمنا في أوطاننا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم اهدهم سبل السلام اللهم اهدنا سبل السلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا مصلحين اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين إله دمجنا ضعف كلن كنا كنا خير قوى الله كدقو إلهي سبحانه وتعالى نبضاسي ما تأنو جيدي لوضع إلى سكوا فقي الله هذا ما يستره إلهي هذا ما يستره تتكول على عين وحبة دحولين الشيطان كل بيستصيه إلهي سبحانه وتعالى وخيرك الله تصو إلهي خيرك هتصو أنت خيرك وضع عليك خيرك سدا الله قوليه أنت شرك ودنا الله سهدي الله سهى بار من الله سهدي أنت حماته وبدامي سيماته وحموديسه إلهي وضع خيرك الله وفتش إلهي سبحانه وتعالى هاي نوعات كي نبت قليده أمنك الله نوعات كي توفيق الله ينسيه عدو بدن بعدين الصوماليين إن إيجان إن السوقية تدمي دوبه ومد نقول الله ينقدقه تدن تود كرتا الله ينقدقه كوا دين تود حوشي الله ينقدقه
إلهي سبحانه وتعالى هي نقا أقبله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته